نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أمرين إن لجدو قبلها هبيرات وأنا عبارين يا نوع كستو جودني كقبلها قرآنكو وحكيلي جودني كقبلها ما تشرتو هبيراته هو global issue arrintan arrin hal wadan ama hal qof oo wax ka tari kara ma ahan arrintan waxay u baahan tahay in la iska kaashado ha ahaato arrintii bulshada ha ahaato muxuu ahaay arrintii dawladda ha ahaato dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanka in macnaa arrintan oo dhan macnaa in wada jir waxba loo macnaa wada jir gacmo wada jir ayay Soomaali ku maamaan ayay wax ku gooyaan macnaa in arrintaani loo soo wada jeesto oo si macnaa oo dhab ana loo qaato oo aan la dhihin waa arrin haweena macnaa muxuu ahaay hadda United Nationska ama qaramada midoobeed waxay go'aansatay in sanadka 2030 la joojiyo gudniinka walaalahayga Soomaaliyeed waxaan u dirayaa in aanay gabdhahooda gudin waayo waa dib ku yahay ilmaha caafimaad darro u keenaya waliba dhaqankeena Soomaaliga aad buu qariban yahay saynu hablaha u gudno waa dil marka dilkaasi wuxuu dhigmaa marka inantan la dilayo mustaqbalkeeda lagu ciyaarayo xubneeda lagu ciyaarayo in waxa waajibay diiniyan in mag laga qaado qofkii waxa geystay yaa marka waxa geystay qofkii farsamayaqaanka ahaa waxaan sameynayay kow iyo waalidka labadaba in mag ilmaha looga qaado ayaa waajiba